sheekadan waxay ka dhacday guriga deriskeena. Deriskeena waxaa degnaa nin farsamayaqaan ah oo keligii shaqaysta. Habeenkii waa uu yimaadaa, maalinkiina sidaas ayuu baxaa. Runtii aniga ma hubi inuu farsamayaqaan yahay. Maalin maalmaha ka mid ah banaanka ayaan u istaagay, waxaan isku dayay in shaqadu uu wato aan wax ka ogaado. Kadibna waxaan ku dhahay nambarkaaga isii. Cabaar markii aan la hadlayay mana ila hadlin, sidaas si la mid ah wuu i dhegeysanayay. Aniga waan yaabay, aad iyo aad baan u yaabay. Isla maalinkii ayaan banaanka u istaagay, kadibna waxaan arkay asagoo sita boorso. Boorsadaasna waxaa ku jiray wax gacmaha lagu xidho. Intaan cabaar fiirinayay ayuu marsigadiis igu istaagay, kadibna wuxuu igu dhahay, maxaad igu mashquulaysaa? Biliis iga leexo. Aniga naxdin ayaa isoo gashay oo waan yaabay. Habeenkii idil waan baqayay oo sheekadiisa ayaa igu soo dhacdhacisay. Maalinka xigay xilli galab ah ayaan banaanka u istaagay. Please saaxib, muuqaalka like inoo saar si uu meel dheer u gaaro. Please like inoo saar, mahadsanid. Kadibna cabaar markii aan taagnaa ayaan waxaan arkay in xaafadiisa ay wax ku jiraan. Qof ayaa sariir jiifay, kadibna asigana mindi ayuu watay. Aad iyo aad baan u naxay oo sikadiis ayaan guriga ugu soo xarooday markii aan arkay. Anigu waa markaan in ninkan uu yahay dilaa weyn. Booliiska ayaan la xiriiray oo waa la hadlay oo waxaan ku dhahay guriga nagu dhegan qof ayaa qof dilay. Kadibna booliiskii waa ay soo carareen oo gurigii ay sidii u yimaadeen. Kadib ninkii sidii ayaa lagu xiray. Waxaa lagu dilay xaafadda nin kale oo xirxirna asaga oo dhan. Booliiska ayaa markii dambe waxay soo bixiyeen meydka meesha ku jiray. Anigana meesha ayaan taagnaa. Aad iyo aad baan u baqayay markii aan arkay meydka. Waxa uu ahaa qof maalmahan oo dhan la raadinayay. Xaafadda ayuu nala degnaa. Ninkan waa hubaa si xun ayuu u jir dilay. weliba wuxuu qoorta ugu xiray birti markii hore uu sitay. kadibna caloosha ayuu haddana tooriye ka geliyay. booliiska sheekadii oo dhan ayaan ugu sheekeeyey iyo sidaan wax u arkay. anigana waan walwalsanaa oo aad baan u yaabay. maalinka xigta asxaabtayda ayaan u sheekeynayay sheekada igu dhacday, ayaga oo idil waa ay naxeen. kadibna waxay ugu dhaheen xaafaddaas ka soo guur. annaga oo dhan waan baqnay, sababtoo ah ninka la dilay xaafadda oo dhan ayaa laga garanayay. xaafaddii oo dhan qalqal ayaa soo galay markii aan u sheegay. ninkaas wuxuu ahaa nin dilaa weyn ah. anigana waxaa u malaynayay farsamayaqaan. markaas ayaa ugu dambeysay oo waan aamini waayey, sidiina ayaa lagu xiray.